socotay arintani aadka ama si weyn looga hadalhayo baraha bulshada oo Cabdullaahi oo saaxiibadeed ugu hadiyeysay ninkeeda in uu ka dhigto xaaskii labaad adiga oo hadiyadana loo siiyay si fiican uu hadiyeysay waa hadee sidaan ku maqleynay sheekada maadaama ay labadoodaba aysan ka hadlin balse ay soo dhigayeen muuqaalada ama fiidiyoyaasha ay soo gelinayeen marka waxa ay isleeyihiin dadka ku wadaaga baraha bulshada sida Facebook in ay gabartaasi loo hadiyay Cabdullaahi uu hadiyeysay saaxiibadeed ninkeeda ha si fiican waad la socotaa arinta hay dhankaaga waan balneynaa horta xasanaad haye waxaan leeyahay hambalyo waa carab dadkaasi si fiican Soomaalida marka gabdhaha waxaan doonayaa inay ku daydaan oo saaxiibadood asxaabtada ku soo qabato haye xaaska gabdhaha Soomaaliyeed miyaa laga helay taas mise caqabad ay ku noqon dabcan way bilaabataa sheekada way soo bilaabataa waa challenge camal haye adiga xitaa waxa laga doonayaa inaad samayso waxaad leedahay fursad ay u noqonaysaa waa tusaale ahaan haye sister Sara iyo Cabdullah aad iyo aad ay saaxiibo u ahaayeen way isku dhawaayeen xitaa waxay dadka inta badan Instagram-ka ayaan arkay waan kala socday inta badan dadka waxay aad u cambaaraynayeen Cabdullaahi si fiican siday u dhacday inaad ninkaaga ku qabato saaxiibtada zaid haye dabcan dad badan ayay la yaab ku noqotay maadaama uu jecel aad u wada dhaxeeyay labadooda tada kale ma la sheegi karo inay Micis xasanaad inuu qabo Sahra ma sheegi karno inuu qabay shalay bis ma aragno inay shalay un bay soo bandhigeen si fiican marka ma sheegi karno inay si qabeen inta ka hor qarsoon ahayd ma la sheegi karo Cabdullaahi iyo iyaga kaligood ay ogaayeen ma la sheegi karo balse fanskooga waxay ku soo wargeliyeen shalay